waxaan sharaf ku yeeshay waxaan sharaf ku yeeshay inaan wareysto walaalkay in adeerkay cabdiqani oo ku magac dheer transmission dadku isku sheeg magacayga waxaa la yidhahdaa cabdiqani salebaan faarax sida soomaalidu ii taqaano nin makaaniga waxaa la yidhahdaa transmission waxaan ahay nin ku xeel dheer xagga cilmiga farsamada gawaarida automatica geerka transmissionka in muddana dhulkan kanada ku noolaa horta dhulkii long time baa kuugu dambeysay laakiin waxaan maqalnay cabdiqani inaad ku noqotay dhulkii maxaad ku soo aragtay dhulkii waxaan ku soo arkay waxyaabo badan waan aada u jeclaaday dhulku waa dhul wanaagsan waa dhul nabad iyo deganaansho iyo stress iyo depression waxyaabahaynu halkan kala kulana aanu jirin iyo single father single mother caruur yaacaysa aanu jirin dadku weli ay aaminsan yihiin wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu maasha allah dadku sidaas ayay isku jecel yihiin ilmaadeer ilmaabti habro wadaag laakiin north america waxaa ma jiraan waxaa kala yaacaya laba wada dhashay laba isdhalay macnaa qof walba wuxuu noqday self centered individualism taasina waa mid ay keentay dadkaan la noolnahay dhaqankooda aynu qaadanay aynu haboognay wada xun marnay aanayna ogeyn dhallinyarada badan maanta isku haystay inay nolol fiican ku nool yihiin laakiin ay ogaanayaan markay muddo waktigu ka lumo marka dhulkii aad buu u fiicnaa qura aan arkay waxa weeyaan shaqa la-aanta tahriibka ka waran arrinka tahriibka waa mid aan aada iyo aad dhalinta soomaaliyeed aan ugu sheegayo war tahriibku macnaheedu waxa weye haddaad tahriibayso waa inaad wadataa aqoon iyo xirfad hadday noqoto farsamada gacanta electricianka carbenterka wax skill work adiga inaad transmissionka tahay horta ma u sheegtay dadka anigu nin transmissionka rebilgareeya baan ahay inuu soo shaqeeyey canwest transmission alberta edmonton toronto waxaan ka soo shaqeeyey abi racing transmission wolf transmission master transmission waxaa kaloo ka shaqeeyey Gatineau Quebecois 243 Balmelone Street master transmission nin la oran jiray Conrad bay ahaa supervisor berigaa wax madow Gatineau kumaan ay nooleen aniga iyo nin Maraykan ah baa ku noolaa magaalada la yiraahdo Gatineau 1994 bismillah weligeyna waxaan ku dhex jiray gawaarida gaar ahaan qaybta transmissionka balse dhawaanadan waxaan u weecday complete mechanic gaariga maasha allah marka dhalinta tahriibeysa waxaan leeyahay tahriibine idinku aan wax aqoon lahayn ha noqonina kuwa badda gala iyagoo aan dabaasha aqoon nina dhulkiisa wax u dhaamo male nin dhulkiisa waxu dhaama dadku nabad hadday helaan horta adigu waa soo aragtay nabadda ka waran maadaama hadda adoo ka maqan 38 years baa ka maqlay 35 years adoo ka maqnaa ka waran aad baan u jeclaaday inkana inaan ku noqdaan doonayaa dhowaan meelaha gaartay waxaa ka mid ahaa hargeysa burco oo dhinaca bariga ayaan u kacay ilaa iyo oog bancadde sabawanaag waxaan ku aada u jeclaystay degmada oog maasha allah
marka dhammaan dadka waa inay ogaadaan in dadkan soo qaxaya ay tahay modern slavery war waxa la raadinaya waa cheap labor waxa usoo qaxaysan waa capitalism wallahi waa awooddu waxay u qabsantaa waxa la yiraahdo man power human resource iyo kinetic energy waa awoodda ka dhalata xagga mashiinada berigan Canada nimi man power baa la oran jiray qaybtan immigrationka kelmadii baa la arkay inay yara fool xun tahay sawaal waxa la bilaabay in loo bedelo ama la sameeyay waxa la yiraahdo human resource wax soo saarka bini'aadanka exactly how to utilize human energy sida looga faa'iideysto energy-ga bini'aadanka war waxa habboon inaan dhulkeena dhisno mushkiilowna qabiilka quranka kala qaybinta dhalintu inay tashato maaha odayaal iyo niman aan ognahay inay sababeen arrimihii dalka dumiyey ha noqoto kuwii ka haray jabhadii kunis jabhadii asanaamta iyo kuwii dambe ee ciidiid iyo ceenkaaba waxa weeye in la midoobo waa maxaa noo dara ninkii kunta kinta markii la yidhi war magaca waa tuu ku adkaystay kunta kinta ayaa la yiraahdaa Soomaalidu ma dareensanaa waxa ay tahay North America capitalism macnaheedu waxa weeyaan big dog eats small dog ninkan waxba haysano waxa weeye snowgaas baa kule dhulkiina imaansada madaxdiina hadday wanaagsan yihiin adeeca haddaanay wanaagsanayna dee vote baa jira vote baa looga qaadaa demonstration baa la sameeyaa banaanbax baa la sameeyaa waxyaabihii aan arkay waxaa ka mid magaalada Burco 1984kii way dhisnayd wadooyin bay lahayd ashadii dhaweedee aan tegey waxaan arkay wadooyin inaanay lahayn باي لهين أنت أصلا سننا وحنا لهين دولة بالله يسمى لين بال مركا وحيا بس بان أنا واقعي وردت وين تشتان محاولتنا فيوجر محاولتنا وحوي دولكينا دست دولكا أيو قيرات كوتشرا ذكر صوت تهريبية إيمودي يهلكن إني شندي تاو war haddaad cheap labor doonayso markaad ku cusub tahay aad moodayso inaad jannadii soo gashay sidaan aniguba ahaa markaan u shaqayn jiray Mr. Transmission 242 Danford qofkii yaqaanay baa 242 Danford Toronto aan iskuulka tegayay baartimkana ka shaqayn jiray transmission baa waxaa ku furay Tembo Ford وأنا في الله يتراسي مش كيسة رواقة إنه رجلي ATX عبد القادر سؤال ممكن ترانسميشن سكول ما دو أدي بس وح أدي عد فرسمة أدي سكول بادو أدي بل يرى ومقلسان سكول بانو أدي وحبرت دولكي نية شوكتان وحبرت خيرات كيبا كبوحة وحبرت أدو ماشي عنوسا عرر لسان إسكي إلا برف iyo payment bayniyaal wax kala ma yaalaan haddaad doonaysaa inaad wax qabsataan war oramadan tahriibaysa aan arkaynay xagga iyo ama ku badnaa Hargeysa ku fasha beeraha ka faa'iideysta energy-gooda ka shaqaaleeya meel ku noqdaan ma hayaan waari shaqeeyay تكلم عن الشيء ضدك الصومالي تشوقه من الصومالي اللي ماشي نقطه قفك قربها مركو كي ماذا سودوي دولك هنعسينينا هورانينا كل ما نقونيسا دولكي ما كون نقونيسا دي مودو فيسا حيابها لكم مي حيابها سبا كمتها اوكي وافرين وحويان الاتحاد والقوة
unity is the power الاتحاد هو unity is the power Soomaalidu meel kasta ay joogaan unity ma laha community unity ma laha dhawaan waxaan arkayaa dhalinyaro badan oo u weecatay heesaha waar heeso looma baahno skilled workers baa loo baahan skilled laborers baa loo baahan xafiiqeen dad xirfad leh oo waddanka dhisaa loo baahan inan yar iyo inan walba inay samiicad qaadatay tiraadi waan heesaya ka ciishi maysta qurbaha hees loogama ceesho dumarku waxaan leeyahay haddaad doonaysaan inaad qurbaha usoo baxdaan neersinimada barta raggana waxaan leeyahay electrician carpenter plumber iyo mechanic adigoo bilaa cilmiya waan tahriibayaa waa kuu doqonin halkaasaan kusoo gabagabeynay caawa aad baad mahadsantahay cabdiqali sidaas iyo next time